waxaa jirta Soomaali badan oo Malaysia joogto Malaysia inaad ka shaqeysid 3 sano 4 sano adduunka marka la fadhiisanayo laga wada hadlayo qaxootiga ama la bilaabayo qaxootiga ubax soo gaayadahe qorax soo ifaysadehe araga ku arwaxsaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أصحابتا. مالكستو أجوكتي. وي كلك عنا كلك عز دونا نوني. ولكن روتين كه. Welcome back مخال كلاته. مخال كمان تحاول واحد للدونا سومالي ماليزيا جوكتو وحكوا جوكا ماليزيا. أما خابك يقولوا ليهن ماليزيا. وحي هاتبر. أو كل خالد دونا سدح خيبات. ما تنك ماليزيا خابك كوي ما كرا ماليزيا كو يخابك يقولوا لا كرا ماليزيا لابو يمحل يجبهن ماليزيا مركا جوجو. إنه كنا ولا أما إنه كجوجو. yes ugu horeen waxaan rabaa inaan ka hadlo dad badan waxay isweydiiyaan mararka qaar sidee Malaysia ku imaan karnaa anaga la baahan yahay kharash intaan ugu kacayso iyo waxyaalahaas oo kaleete runtii waxaa jirta qaabo badan oo ku imaan karta Malaysia waxa ku imaan karta dalxiis waxa ku imaan karta caafimaad iyo ardaynimo inaad ku imaadid dhammaan dadku way badanaa way wada og yihiin marka caafimaad ku imaanayso kaliya wax laga baahan yahay hataa Soomaaliya joogtid waa inaa heshaa warqad caafimaad oo lagaaga soo diray Malaysia ama isbitaal ku yaal Malaysia taasoo macnaha cadeynaysa in wadanka caafimaadka ugu imaanaysid kadibna lagu soo ogolaado si hadhow macnaha ay aday cadeyn kugu noqoto airportkan lagaga celinin okay taas meesha ugu gudub horso maatinka marka laga hadlayo waa mid aad iskaga fudud wax saas oo dhib badan ma ahan inkastoo marka qaar iska dhib badan tahay okay ugu horeen labada mid waxay tahay inaad ku joogi kartid Malaysia oo ugu noolaa kartid inaad arday tahay oo haysatid visa arday ah kaleeto oo ah inaad haysatid inaad tahay qaxooti ka tirsan United Nations ama UNHCR sida u taqaanba alxaq haddii aad qaxootita saddex qayb oo kala qaadno haddii aad qaxootita oo ku noolaa kartaa Malaysia adigoo haysta cadeynta ah inaad qaxooti tahay oo soo socdo waa soo daalba okay sheekada doonay si wado sheekada waxay ka taagantaa adigoo Malaysia joogta haddii booliiska ay ku qabtaan xabsi baad tahay mise mintigaas aawaytid ama waraaqadaas aawaytid way kugu sii deynayaan oo mid oo kala dhigayna waxaa jirta saddex process oo dadka qaxootiga ay marsiyaan mid ugu horeyso waa inay siiyaan warqad yar mid labaad waa warqadda face mid la inay siiyaan mid saddexaad oo ah inay kaar siiyaan kaarkaas oo ah macnaha inuu yahay qofka qaxooti rasmi ah haddii aad haysatid warqadda yar inaad waxay ka dhigan tahay inaad weli tahay oo macnaha lagu jeekimayo haddii aad haysatidna warqadda wejigana waxay macna ka tahay in processkaaga uu socdo qasana ama meeqa bil aad ku qaadanaa kaarka UN-ka ama warqadaha UN-ka aku joogi kara Malaysia waxay ku xirantahay taas waa nasiib haddii hore qaxooti kale u soo noqon waxay qaadanaysaa waqti ilaa 3 sano waqti xaadirkan la joogo waxay qaadanaysaa waqti dheer laakiin marka hore way ka duwaneed marka hore wax walba waxay iska ahaayeen easy kaal ma khasana joogtaa Malaysia wallahi Malaysia 4 sano jooga kaar UN ma qaatay wallahi kaar UN waa laga soo daahay waa laga soo daahay dadka oo Malaysia oo kaarka وجهي كذا نومت علي بس اسكا بحاي بس اسكا dadkan waxa uu sheegay baxay kaskada waxa ku weydiina had maxaa wadataa hadda waxa iska wataa yani waraaqada wajiga yaal markii isibka camaloogna iska wadana isba iska ma fahantahay dadka laga soo daay yani waxa oonay ma fahantii yani raashinka laga soo daay anano 4 sano Malaysia joogtaa welina kaar ma qaadin macnaheedu waxa tahay ilaa hadda qaxooti rasmi ma tiida ilaa hadda qaxooti rasmi ka yaacda ma fahantii marka lagu dhufro markiina Malaysia hadaa imaad oo hore qaxooti rasmi ah kan qays ma aan sheekada iyo hore inaa wax walba ka helaysid sax waa sheeko oo saas ma aan saas ma sheegay ko marka UN-ka galeesid waxa lagu siin appointment mid la dhahay oo qadaris asa adiga 2 sano 1 sano way kugu tumaynta noqotay waxa lagu siihaa dib interview lagu siinaa interview galeesa kadib waraaqada lagu siinaa waraaqadaas yani hataa waxay ku noqon doontaa 2 sano 3 sano 4 sano dib laga bedelay mid laga bedelayo yani waraaqada lagu sii celina waraaqada bakala 4 sano 6 amal waraaqada kadib le marka shanaad ku guuleysatay dib kaarka qaadanaysa sida kale kaarka si degdeg lagu ma qaato waxa waaye inaan sabarka abis leeyahay iska barsi isi baa iska dhigin hada isib noqoto isi waa laga dhigaa jooyal iska dhigan faadi isi dadka qaar waxay u maleeyaan inay caadi tahay haddii warqadda yar aawaytid iyo warqadda kaarka aawaytid farqiga u dhaxeeya waxa waaye marka kaarka weytid haddii dad macnaha la qabanayo dadka
haddii immigrationka ama booliiska dadka ay qabanayaan haddii kaarka aa wadatid ya way kaaga fiican tahay markaa warqad wadatid markaas waxaa tahay confirm kaarkaaga markaas saas u tusid qofku celinaysa mala bax laakiin haddii warqad aa wadato waxaa laga yaabaa in saldhigga lagu geeyo ama jeelka lagu geeyo lagu xiro maalmooyin lagu haysto ilaa 2 isbuuc oo kaleeto inaa xabsi ku jirnaadid warqadaas darteeda taas waa farqi u dhexeeya kaarka iyo warqadda yes hadda guriga la imaaday okay marka farqi u dhaxeeya waa aragteen hadii UN ka kaarkiisa qaadanaysan waxa way iska dib badan tahay waqti dheer ay qaadanaysaa ilaa 3 sano 4 sano tusaale ahaan anaga oo kale hadda 4 sano ku dhawaad 3 sano iyo bara meesha jooga ilaa haddana kaarka UN ka ma qaadanin taada kaleete dadka qaar waxay u haystaan in Malaysia laga shaqeyn karo Malaysia inaa ka shaqeysid waa sharci daro illegal Malaysia inaa ka shaqeysid adiga qaxooti ah ma ogola dawladda laakiin waa ka shaqeyn kartaa si xatooye hadda xisaabta ku darso Malaysia inaa ka shaqeysid ma ogola dawladda sababta aysan u ogoleen waxa waaye dawladda Malaysia maba ogola bataata qaxooti waxa la lahaay because of adduunka marka dhiisanayay laga wada hadlayo qaxootiga ama la bilaabayo qaxootiga wadamada qaar waxa jiraan barnaamijkaas ka soo horjeeday sida Malaysia oo kale ma ogoleen waqtigaas kama mid noqon United Nations-ka ama kuwa qaxootiyada wadamada qaxootiyada qaabili doono kama aysan mid noqon way diiday saas darteed maadaama ay diiday ilaa haddana way ku taagan tahay inay diido waxa waa marka ma laga shaqeyn karo inkastoo xatooyo loogu shaqeeyo xatooyo ugu shaqeyn kartaa kaar UN haysatid xitaa may nasiibkaaga ku shaqeey waa intaas iska shaqeey nasiibkaaga ku joog hadii lagu qabto waa lagu qabtay laakiin midda kaliya oo faa'iidada leh waxa hadii Malaysia aad joogto lagu qabto in lagu celinaynin in macnaha xabsigan ha ku sii daaheen UN-ka way ku soo bixinayaan ilaa hadda waxay sheegeen kuwa UN-ka inay macnaha bilaabi doonaan inay kala hadlaan dawladda inay dadku u ogolaadaan qaxootiga inay shaqeeyaan sanadkii hore la soo dhaafay December ay waxa u direen fariin ah in loo ogolaado qaxootiga Malaysia joogto inay shaqeeyaan laakiin ilaa hadda dawladda Malaysia wax jawaab ma aysan ka soo bixin imaatinka Malaysia way fududahay nolosheedu way fududahay wax walba waa okay ayadoo saas ay tahay alla ogolaan in la shaqeeyo oo qof walba haddana dadka badan Malaysia jooga ay shaqeystaan wax walba ay qabsadaan Malaysia waa iska easy saas uma dhib badna waxaa jirta Soomaali badan oo Malaysia joogto taasna waxay ku cadeynaysaa meesha Soomaalida ay ku badan tahay nolosheeda inay iska macquul tahay wax walba waa sida adiga ka dhigato maanta meesha adduunka uga adag xitaa tagta adaa fudeed ka dhigay yes waxaan u maleynayaa inaa video wax badan ka fahantay wax badan ogeyn inaa ka ogaatay baahi ay ahaaso maca salaameys xitaa ma gaara wax unu way sugnaysi kunkus artisan diisoo galayso qalkan muuqaalka xiga inta kulmaan waxay idinlaan sidaas iyo bye bye hay bye madam weybe hay bye bye DJ Getty Music. Boys for life. This is for Banadir. Bushadaydi ila del o bushadi Banadir ila del o bashal waan ila del o bushadaydi bashal waan bashal ban ku iman bulshadii Banaadir bashal ban idinku iman bulshadii bashal ban ku iman bulshadii Banaadir bashal ban idinku iman bulshadii ila del oo bulshadii Banaadir ila del oo bashal waan ila del oo bulshadii bashal waan ila del bulshadii awa ila del عويني او عن عيارني عدك موسيقى عيرك جية يدها دخنكي عيارت ديلا عويسكي يا شريف كان عاود ديلا عيارتني وهي وبحصود نهايته ورح صائف ليس به أرقاك وأروح سبيل